sida caadadu ahayd waxaan usoo shaqataga ayaan ahay anigoo shaqadeeda ku socdo goobta shaqadeeda ayaa waxaa lagu istaajiyay daljirka dahsoon oo markaas askartii joogtay ee istaajisay ee dhaheen indhashareerka qaad dadana markii aan indhashareerka iska qaaday ayay waxay yiraahdeen ninkii askariga wuxuu yiri soo deg adi markaan soo degay ayay wuxuu yiri waa laga shakiyay intii istaag meeshii aan istaagay marka wuxuu wacay taliyihiisii oo wuxuu yiri taliye waxaan ka rabaa in waxaa joogto waxaa meeshan ku haynaa nin xijaab iyo indhashareer soo xirtay marka kadib taliyihii wuxuu yiri bajaaj soo saar ninna soo raacay oo askari ah saas marka hal lagu keeno saldhiga sidii marka saldhiga lagu keenay aniga iyo askarigii iyo waxaan ku tagnay markaas saldhiga markaa tagnay akhbaarteedii wada sugaayeen waa iga soo horeeyay akhbaarteedii markii aan tagnay taliyihii iyo dadka ciidanka oo dhan wada taaganaya booliskii aan tagay markaa tagay taliyihii hadal igu bilaabay marka wuxuu yiri assalaamu calaykum magaca waxaan iri waxa Faiza lidhaha markaas wuxuu yiri tan diyaas barawaaye nin diyaas barawaaye waa wacdahay gabar markaas aan oo meesha taagneed oo boolis ah oo laakiin ka muuqanin dharkii uniformkii boolisnimada ka muuqanin oo iska moodis ciyaal xaafad ayaa meesha taagneed markaas waxa la yiri soo bar gabadhii horta meeshii ayay hanjabaad igu bilaawday iyadoo markaas ii haysata nin ina ahay hanjabaad iyo aflagaade igu bilaawday waas raacnay waxay geysay qolkaas oo qolkii oo inay igu baartay ahayd qolka laakiin waxaa jiifeen 5 dumar 5taas dumar ee ahaayeen dumar oo muxuu ahaay shaqo markaas aan isdhahay way ka soo degeen ee meesha jiifeen dumarkii ka isay waxay tiri ka baxa banaanka u baxa gabadhana qofkana baara oo nin looga shakiyay ee gabdhihii ugu sheekaysay marka gabdhihii waxay yiraahdeen ayagoo hurdahayso ma baxeeno gabadha qofkan nin waa u jeednaa meeshii isku bar anaga hurdaan heesay madaan soo markii jiifka ku noqdeen gabadhii waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siibi maayo shaqadaadu waxay tahay in ay baartid hadaa baaritaankaas wax ku fahmi weyso waa ina ii gudbisaa marka taliyaha markaasi baaritaan ka baxsan oo intaas ka tayo badan inuu keensado markaas isaga gabadhii timihii iyo wixii inta taabanaysay waxay tiri qofkan timeel leedahay timna dheer leedahay marka mid ah meesha jiifta soo booday waxay tiri nin hadda ka hor la qabtay oo xijaabi wax u xirnaay timuu lahay timna dheer u lahay ee timaha fiirini gabadhii markii way sii taawatay saa'ida ii taawatay markaas muxuu ahaa mid kale soo booday waxay tiri tan way tababaran tahay waxa way kuwii ciidan oo muxuu ahaa qolooyinkan xaq jirka oo hal sano oo ciidannimo soo martay kadib marka gabadhii qalqalaa galay oo ay baaraysay gabadhii marka intaana qalqalgelinayay 5 meesha jiftay soo markii gabadhii markay baaraysay waxay qaado weysay go'aan inay taliyihii ku celiso isla markii inay dhahdo qofkan waa gabar gabadhii marka waxay tiri hadaa sii deysid gabadhan hadhow hadii wax noqoto adiga shaqada laga casilaya adiga muxuu ahaa wax noqonay marka gabadhii waxay rabtaa inay ku adkaysato inay si fiican ii baarto mid kale soo boodo waxay tiri ninkan wuxuu marsan yahay cilaan marsana had soo baxay kadib intii markay qaadatay ayaa waxay isku dayday marka gabadhii baaris inay wareysato dan waxa ku dhacday baaritaan kaliya lagu amray ma lihid inaad muxuu ahaa aad samaysid markaas wareysi iga qaadi wareysi hadii la qaadayna waa ina OB-ga dhigiyaa dan taliyihii ku soo noqotay waxay tiri gabadhan way diiday in la wareysto